هو كسير أنا كو بسم الله والبص على الله قبص تلفونك قبص تلفونك وين أوس تلفونك قبص باوس قبص تلفونك يا بايسن أنا أبغى يا باوس قبص تلفونك لا تقول لا داوم ما سيكتري لا تندار سيكتري لا تندار سيكتري وريا جبريا سيكتري ما سيكتري لا سيكتري سمع عينه هاي سمع عينه سوري بس خلاص qolka fadhiga anu taagin waxay soo cabitaan soo shubtay ayadoo jareynayso markii soo shubtay buu cabitaanka markaas aan ku yiraahday mar rabo waa maadsanta hadda soo quraacday iskiin afku jiro markaas aan soo quraacday marka intaas ilaaday ii sheegay nashareer wadatay waxaan ku yiraahday abaa nashareerka iska fur aan wajigaada arkay weligii kumaan arkin waan kula hadli jiray intaas markaan ku iraaday nashareer iska fiiqday way doola cadeysay way dhaqaaqday biyo markaan diiday cabitaanka waxay dhahay tubadan biyo caadi kaaga soo daraa mayaan ku iraaday markaan ku iraaday halahaas dhaqaaqday ku inda adeegtay dhaqaaqday tubada xaqi aad albaabka laga soo galay ku taal marka tubada markay dhaqaaqday ayaa qol dhinaca ka soo jeeday albaabkan taaganaa qolka fadhiga albaabkiisan taaganay qol dhinaca ka soo jeeday wax ka soo baxday naag weyn oo xoogan oo madow oo rajistiin iyo boomiyelis ku socoto intii ay soo dhaaftay qolka inta ka soo jeeday ku orday markaas aan shaki ay ugu dhashay waa soo laabtay telefoon yar oo niclaa igu jiro dhankaana la soo baxay oo been macnaha ku hadal been si aan ku baxaan rabaa markaas بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد الصود وهذا أصحابي صود وهذا مقالة الصود دعوتين نكا دالين يردا لغو مقعابا دقعالين أرتوانين أن سفي عن أقانو إن بدن أن أقيني أو waxay saaxiibo ahaayeen nin walaalkay oo iga yar ay aad saaxiibo ahaayeen oo xaafadanada ayuu imaan jiray oo degmada hodan runtii walaalkeen oo kale ayuu ahay gurigeena markuu yimaado wallahi waxba nooma kala socneen runtii oo in badan xataa waa nala hoyin jiray markaa muuqaaladan arkay aad ayaan oga naxay sida lagu samaynayo ninkan dhalinyarada haddaba waxaa igu maqaalo marka oo aan la yaabanahay ilaa hadda maskaxdayda galila dhagacaleen waxaa mishimay gabdho xawaadla ayaaba lay barayaaba laba gabdhood waa xawaadle iyo hooyadood ayaa la leeyahay gabarna waa abgaal gabarna waa mareexaan shantaas naagood weeye waxa ninkan garaacayo oo sidaa u galayo oo foolxumada yacni intii kaamera la soo dul istaageen ka duubayo dhaqamada noocan anigu ma aanan garan horta waxa laga faa'iidayo wiil Soomaaliyeed oo intii la balamiyo oo intii guri la soo gashto naaga loo soo kaxaysanayo baangada la soo baxayo gabdha waa la shukaansan jiray guryahoodana waa loogu tagi jiray gabar midda wanaagsan oo asluubta leh oo dhaqanka wanaagsan waa midda gurigooda loogu tagay lagu shukaansada ma aha midda hoteelada iyo baararka iyo guryaha ragee tagto taasi waa mid qariban laakiin gabadha wanaagsan waxaan ku aqoon jirnay ama aan ku naqaanaa in gurigooda loogu tago oo lagu sheekaysto dhibaatana ka timid guriyihii arrintaa marka leeyahay gabdhahaani gabar xawaadla ayaa horta wiilkan balimsa dhagacaleena leeyahay xawaadlow saas maxeer baa xawaadlow in gabar xawaadlaa wiil xawaadlaa walaalkeed intay ballamiso markay guriga soo geliso soo xergeliso in sidaa la yeelaa dhaqankaasi goormaan yeelanay maxayse tahay waxaa foolxumada maxayse tahay aniga horta ilaa hadda ma hubo waa laygu yiri waaye
laba gabdhooda xawaadle dhigiri gabadha balmistar waa xawaadle gabar kaleeto la dhalatay iyo hooyadeed waa kuwa guriga loogu yimid laba gabdhood oo kaleetana waa ayagana waa la joogeen waa arrin marka aad iyo aad u foolxun waxaan leeyahay marka saaxiibkay dhagacaleen oo kugu dhacday iska sabar iska dulqaado runtii dhagacaleen waa inta aan ka aqaano waa nin degan waa nin maskiin ah waa nin aan reero dhib ahayn waa nin iska beesaani ah asaga waa nin xawaadlaha oo cali madaxweynaha oo xarun cali ah dhagacaleen yarkaana arkaysaan soo ma waxaan ku aqiinay nin degan oo afgaaban inuu yahay laakiinse waxaa helay kuwa aan rag waxba ka aqoon ayaa helay oo guri ku soo xariistay kaamirana yani la daba istaagay maxaa hadda laga faa'iidayaa ayagii hadda waa xiran yihiin hablihii dhibkaan geystay oo wiilkaan dhibkaa u geystay waxaa lii sheegay inay xiran yihiin waxay ka faa'iideenna hadda ma jirto maskiinkaas dhalinyarada ah yaa hadda kuleetaba dhib muuqdana ma aysan gaarin laakiin waa wax iska basiida laakiin waa dhaqan xumo aad iyo aad waxaa weeye aad moodid inay waayahan dambe usoo siyaadayso magaalada muqdisho horta dhaqamo xumaa ka socdaba iyo soomaaliya dab fiirisaba dhaqamo aan hore loo aqoon iyo waxaan ummadda yacni ku dhaqmi jirin ayaaba hadda bilowda marka waxaan leeyahay dhagacaleen waxaan leeyahay saaxiibkay iska dulqaado nabar xaq darra allah kaaga dhigo haddii ay gabdhahaasi gabdha xawaadla ay yihiinna kolletaba waxaa la rabaa xawaadla jufay unka noqonayaan xawaadlana dhaqan iyo xeer uu leeyahay arrintaas waxaa rabaa inay ka garbaxaan wiilkaas dhibaatada loo geystay gabdhahaasi dad baa dhalay dad bay ku abtirsanayaan wiilkaas in laga garbaxaa rabaa dhibaatada loo geystay akhyaari marka waxaa leeyahay waqtiga juuga hadii maxamed islaam ay dhamaantiinba muuqaalka inoo sheer gareeya like-tana inoogu dhufta bejkana haddii aad nagu cusub tahay inoo soo follow gareeyin dhammaan waad islaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu